السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud waxaan rajeynaa caafimaad qabtiin casharkan wuxuu ka mid yahay casharada ereyda ahaa aynu ka qaadanayna college-ka cilmi academy halkan waxaynu ku baran doonaa 10 erey haatan sabuuradda waxay iga qaaday 7 kuwa kalena waynu ku dari doonaa hadduu ila idmo ereyga koowaad waa ba yes ba waxaa la yidhahdaa yani codka ama dhawaqa ay sameynayso bisadda yes ba khaasatan the soft sound of a cat yes Englishku xayawaanka codkiisa wuxuu leeyahay erey hadda tusaale camal cows they moo baan leenahay for example the cow mooed samarit bisadu pa waa markay soft tahay laakiin markay codkeeda caadiga waxaa la yiraahdaa meow okay shinadan waxaan leenahay buzz libaaxana roar so yani xayawaanka dhawaqiisa English erayay u bixiyeen erayay leeyihiin so bar waa codka ay sameeyso ba waa codka ay sameeyso bisada beetroot waxaa la yiraahdaa wax markay halaabaan qurmuumaan yes rotten rot waa wax markay halaabaan rotten way halaabeen yes for example cunada tani waxay u shiiraysaa cunmo qarmuud ama dhowr maalin taali the food smells beetroot yes erayga saddexaad waa quid waa pound so lacagta ingiriiska waxaa la yiraahdaa sterling pound lacagta mareykankana dollar baa la yiraahdaa sax yes so dollarka mareykanka wuxuu leeyahay $1 $2 ayaga waxay leeyihiin £1 £2 so 1 quid means 1 pound in the British currency or in the British money ereyga afraad waa rabies waa cudur laga qaado xayawaanka khaasatan eeyga iyo bisada and it's very serious by the way hadduu eey ku qaniino ama bisad ay ku qaniinto run to the hospital vaccination ha ku siiyaan iyo maxaa ahayday injections ha ku daaweeyaan because haddii kale cudurkan it's a very serious disease waa cudur aad halistiisu wato yes ereyga shanaad rap ereygan iska fudud yahay rap waa nooc ka mid ah musiga yes qofka yani inuu heesaha hip hopka inta badan la yiraahdaa rap yes so music wuxuu leeyahay jazz hip hop rap classical music dhamaantood reggae markay kala duwan yihiin marka rap waa nooc kamid ah heesaha yes hada Sharma Boy amal he's a rapper heesaha rap ku qaada ama 50 cent ama ilka case dhamaantood yes for example haddaan ii ku daro waxay noqonaysaa rap cashkan kuma jirto laakiin waa erey aan jeclaan lahayn inaynu baranno rap dhalinyaro waa kufsi yes rap kufsi yani gabar in la kufsado ama wiil in la kufsado labada dhanba uu dhici karaa laakiin dhanka gabdhaha inta badan yes marka rap iyadana waa kufsi ereyga lixaad waa rave waa qof markuu aad u faraxsan yahay they are very happy they are very excited taala adigoo faraxsan markay hadashid taaba la yiraahdaa rave he raved with excitement yes ereyga toddobaad waa redis iyadana waxay isku macno yihiin money lacag laakiin ereygan waa informal English yes informal wax laga wado iyo formal taa uma laabanayno mar badan baynu ka hadalnay so redis waa money waa lacag laakiin waa informal language so waan tirtirayaa sabuuradda si ereyada kale u qorno okay ereyga sideedaad aynu cashkan ku baranayno sidoo kale waa receding yes receding dhalinyaro waxaa la yidhahdaa wax markay gadaal u socdaan yes tusaale Soomaalida timihii baa kistoo waxay go'aansadeen inay madax dhexdiisa tagaan ama madax yani bidaar inay sameysado taas waxaa la yiraahdaa receding hairline timihii baa sujuudda ka laabtay gadaal bay u laabteen yes ama dhaqaalihii hoos u socda ama biyihii gadaal bay u laabteen the flood waters are receding so marka receding waa to move back dib inay u laabtaan wax ama timo dib u laabta ahaado ama biyahaada ama dhaqaalahaada waxay doonto yes good ereyga sagaalaad waa reddish waa adjective waxay ka yimaada ereyga ahaa red oo colorki ah colorka guduudka la yiraahdaa red reddish waa wax markay guduud yihiin okay good the last word ereyga ugu dambeeyo waa rain dhalinyaro waxaa la yiraahdaa bayda mar yani faraska wuxuu leeyahay bayd xarig yar waxaa jira lagu xiro si faraska loo control when you want to control it strap xitaa waa dhigi kartaa strapna waa la yiraahdaa rain waa dhigi kartaa yes so waxaa loogu talagalay faraska in lagu control suusan kaga baxsanin So when markuu faraska ordo, you pull the rein.
xariga jiidaysa and then wuu ku istaagaya